ninkan aad sawirkiisa u jeedaan waxa lagu magacaabaa Maxamuud Maxamed Ibrahim waxa uu caan ku ahaa magaca Abwaan Jeeste waxa uu ka soo jeedaa gobolada waqooyi haddaba warar soo baxaya ayaa sheegaya inuu ku biiray kooxda Al-Shabaab waxa raba inaan warbixintan kula wadaago maxaa laga yaqaanaa ninkan maxay tahay sababtii ay nisa oo hore u xirtay ninkan ay u sii deysay muxuu hore u sheegay oo muujinaya inuu ku biirayo Al-Shabaab dhammaan warbixintan ayaan kula wadaagayaa soo dhawaada saaxiibayaal idinkuna like noo saaro oo sii share gareeyo Maxamuud Maxamed Ibrahim oo loo yaqaano Abwaan Jeeste ayaa lagu soo waramayaa inuu ku biiray kooxda Al-Shabaab isaga oo iska xaadiriyay magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe halkaas oo kamid ah meelaha ay ku xoogan yihiin kooxda Al-Shabaab Abwaan Jeeste waxa uu dhowr jeer hore uu si weyn u taageeray ficilada kooxda Al-Shabaab isaga oo ku sugan deegaanada Somaliland iyo magaalada Muqdisho intaba 18 bishii Oktoobar ee sanadkii hore ee 2023 ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa xiray Abwaan Jeeste kadib markii laga shakiyay sidoo kalena la arkay ficilo muujinaya inuu ninkan uu taageersan yahay kooxda Al-Shabaab barihiisa bulshada gaar ahaan bartiisa Facebook ayuu ku soo qoray inuu si weyn u taageersan yahay ficilada kooxda sidoo kalena wuxuu cambaareyn jiray madaxda dawladda federaalka iyo hay'adaha ammaanka intaba hase yeeshee ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa toddobaad uu ku xirnaa xabsi ku yaala Muqdisho kadib sii daayay lamana oga sababta kaliftay in la sii daayo ninkaasi hase yeeshee 18 Oktoobar markii la xirayay maalin ka hor waxa uu bartiisa Facebook ku soo qoray ciidamada Eritrea ee laga soo daabulayo Eritrea waxba ma soo kordhin doonaan sidii kuwii hore ayuunbaa debka loogu shubayaa xasan sheekh waa nafla caari timihiina waa ay ku baxeen oo hoofibow yeeshay waxa uu dirayaa fariin ah way iga dhan tahay ee miyaan isdhiibnaa mise nafta ayaan wada dhignaa loomana soo jawaabin ciidamada admis dhawaan ayay baxayaan marka ay ka baxaan Soomaaliya isbedel weyn oo dhulgariir leh baa dhici doona sidaas ayuu ku soo qoray bartiisa Facebook hase yeeshee qoraalkaasi kadib nabad sugidda Soomaaliya ayaa ku xirtay godka Jilicow halkaas oo muddo toddobaad ku xirnaa hase yeeshee goor dambe ayaa la sii daayay iminka wararka soo baxaya waxay sheegayaan inuu ninkaasi iska dhiibay magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe halkaas oo kamid ah meelaha sida weyn kooxda Al-Shabaab ay ugu xoogan yihiin lana sheego inta badan magaalooyinka Jilib iyo Bu'aale inay joogaan hogaamiyaasha sarsare ee kooxda Al-Shabaab ninkan ayaa wuxuu ka soo jeedaa gobolada waqooyi waxaana uu noqonayaa qofkii saddexaad ee sheegtay inuu yahay abwaan ee ku biiraya kooxda Al-Shabaab horey Al-Shabaab waxa ugu biiray sanadkii hore Abwaan Nageeye oo kamid ahaa macallimiinta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ahaana nin si weyn looga yaqaano deegaanada Somaliland iyo magaalada Muqdisho intaba waxa uu ninkaasi ku biiray Al-Shabaab dhawaan wareysi la yeeshana waxa uu sheegay inuu ku qanci waayo afkaarta taala xamar iyo Hargeysa intaba sidaas darteedna uu doortay inuu ku biiro Al-Shabaab sidoo kale nin kale oo dhalinyaro ahaa oo isna abwaan sheegay jiray ayaa hore ugu biiray kooxda kaas oo ka soo jeeday gobolada waqooyi kanina wuxuu noqonayaa qofkii saddexaad ee gobolada waqooyi ka soo jeeda ee abwaan sheegta ee ku biira kooxda Al-Shabaab haddaba dad badan oo Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya sababta NISA iyadoo oo baaritaan dhameystiran aan ku sameeynin ay u sii deysay ninkaas isla markaana hadda taasi ay u fududeysay inuu u baxo dhanka kooxda Al-Shabaab iyo deegaanada ay maamulaan intaba haddaba wixii warar iyo warbixinaha ka soo kordho mar walba iyo daqiiqad kasta halkan ayaan kugula soo wadaagayaa waa mahadsantiin saaxiibayaal sidee baad u aragtaan aragtidiina nala wadaaga